safarkaygan ayaa ah mid aan ku imi magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaana uu yahay mid ka duwan safarraan ku maray in ka badan 10 dal iyo 20 magaalo oo ku yaala caalamka. imaanshaha magaalada Nairobi ayaa ah mid aan kala kulmay arrin cajiib ah taasi oo bedeshay guud ahaan qaabkii ku socday safarkaygan kaasi oo qaadan doona maalmo. arrinta cajiibka aan kala kulmay Nairobi ayaa ah inaanad u baahnayn wax kaar ah oo ay ku jirto lacag ama lacag kaashahood gacanta ku wadato balse aad u baahanta kaliya abkani kaasoo ayuu bahan badbaadiyay safarkayga Nairobi iyo dalka Kenya waxaana uu yahay mid si dhib yar lacagta kugu jirta adeegaaga saad aad uga bixi karto adigoo isticmaalaya kaliya abkani. waxaan booqday mid ka mid ah moolasha ugu qaalisan magaalada Nairobi anigoon sidan wax lacag ah balse waxa uu abkani ii noqday mid ii fududeeyay adeegayga waxaana aan ku bixiyay lacagta adeegayga abkayga Wafi Mastercard kaliya anigoo ka bixinaya lacagta la iiga baahan yahay mobilkayga iyo abkayga Wafi. dhanka kale abkani ayaa waxa uu ii fududeeyay inaan wax ka cuno makhaayadaha cuntada ee kala duwan anigoo aan bixinayn wax lacag ah. tanina ayuu bahan waxay noqotay mid aan kala kulmay yaab weyn maadaama safarkani uu noqday kii ugu fududaa uguna wanaagsanaa ee aan abid galo. asxaabta hadda waxa la keenay biilkeygii meeradan waxaa la arsan plan sabab arkaysan balse maanta waxaan ku bixin doonaa lacagta abkayga Wafi taskiliya taanka masala doona mar arki doontaa sida ay lacagtu aanu bixin sida ay wax kasta soo baxay. ugu dambeyn waxaan ka adeegtay mid ka mid ah suuqyada ugu weyn Nairobi waxaana si weyn ugu fududeeyay adeegga suuqani abkaygani oo si dhib yar lacagta aan uga bixinayo waxaana arrintani ay qayb weyn ka noqotay fududeynta safarkayga. teknoolajiyadda ayaa ah mid si xawli ah u koraysa guud ahaan dunida waxaana ay saamaxday anigoo kaashanaya isticmaalka abkayga Wafi inaan si dhib yar u noolaado adeeg kasta oo jecelahay inaan u samaysto meel kasta oo joogo anigoo isticmaalaya lacagta taala saad. sidoo kale waxaad si fudud ugu diri kartaa lacagtaada kugu jirta adeegaaga Wafi iyo saad M-Pesa adigoo si fudud ugu isticmaali kara dalka Kenya. daawade qayb ka noqo adeegga Wafi oo fududeeya noloshaada ku xidhno Ayub Show lana soco muuqaal cusub.